kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheena Mudug Show. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa guuleystihii ugu da'da yar ee ku guuleysta lacag dhan $2.5 milyan isla markaana xilligan la joogo ka mid ah dadka faqriga ay dawladdu wax siiso. balse intaan muuqaalka gudagelin subscribe sar barteena Mudug Show oo nagu soo biir mahadsanid. haddaba aynu gudagalno muuqaalkeena. waxa muuqata xaqiiqda oraahda wixii si fudud ugu soo galaa si fudud ayay ku baxaan. arrintani ayaa waxa ay ku dhacday gabadhii ugu da'da yareed ee ku guuleysatay nasiibka loo yaqaan British Lottery kadib 18 sano oo ka soo wareegtay markii ay ku guuleysatay lacag dhan $2.5 milyan. Kali Rogers oo ahayd gabadha ku guuleysatay $2.5 milyan waxay hadda ku nooshahay xogaa macaawina oo ay dawladdu ku caawiso maadaama lacagteedii oo dhan ay ka taqalustay. Kali Rogers ayaa ahayd guuleystihii ugu da'da yar ee ku guuleystay nasiibka British Lottery sanadkii 2003 iyadoo xilligaasi jirtay da'da 16 sano sida laga soo xigtay website-ka The Sun. markii ugu dambeysay Rogers waxay iska jabisay baabuurkeeda xilli ay baabuurkeeda waday iyadoo cabsan darogada loo yaqaan kokaayinta. kolkaasi oo markii boolisku xireen la ogaaday inay tahay gaashaantidii ku guuleysatay $2.5 milyan. waxaa la sheegay markii ay heshay lacagtaasi aadka u badan inay ku qarash galaysay waxyaabaha isqurxinta, soo iibsashada dharka aadka qaaliga ah iyo isticmaalka darogada, iyadoo sidoo kale qoyskeeda iyo saaxiibadeeda ugu deeqday lacag dhan $700,000. Rogers oo mar ka hadlaysay sida nolosheeda u burburtay kadib markii ay noqotay milyaneerka maalintaajirka waxay dawladda ka dalbatay inay ka warhayso guuleystayaasha aadka u da'da yar sideeda oo kale. Rogers waxay isaga nooleed guri caadi ah kahor intaysan ku guuleysan nasiibka. markaasi wixii ka dambeeyay waxaa guursaday nin kaasi oo nolosheeda geliyay dhibaato qoys sida ay sheegtay. xukuumadda Britain ayaa carruurteeda ka qaadatay kadib markii ay madaxa la gashay darogada dunida. Rogers waxaa kaloo ay xustay in dad badan ay isku dayeen inay u soo dhawaadaan markii ay ogaadeen in hantidan aadka u badan ay ku guuleysatay taasi oo ku abuurtay dhibaatooyin nafsaani ah.